Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena. Maanta waxaan rabaa inaan kariyo alaabtaan aa ujeedaan. Alaabtaan waa alaab casri ah. Idinkama hordhacay sidaan u sameeyay waxyaabahay ka kooban tahay daawasho wacan. Halkan waxaa iigu diyaarsan alaabtii aan ka sameeyay ama aan ka kariyay. Halkan waxaa iigu jirto orange zest. Waxaa waaye orange-ta qolofteeda kore. Noocan ayaan isticmaalay orange-ka. Orange-kan waxaan sameeyay waan xoqay. Grate-ga ayaan ku xoqay. Then uma gudbin qaybta cad. Qaybtaas orange-ka isticmaalay. 3 xabo ukun ayaa halkan iigu jirta. Koob barkiis oo sokor ah. Waxaa halkan iigu jira 1 koob iyo bar bur ah. Haddana waxaan gudagalayaa sidaan iskugu darsan lahaa. Waxaan ku shubanayaa weelkii aan ku qasi lahaa 3 xabo oo ukunta ahayd. Ukunta waxaan ku darayaa half cup-kii sokorta ahaa. Koobkii barkiis oo sokorta ahayd. Intaan ayaan hadda mashiinka gelinayaa. Zaid ayaan iskugu shiidayaa. Mashiinkana speed-ka waan u badinayaa. Waxaan rabaa si fiican inay u garaacdo sokorta iyo ukunta. Waan soo garaacay waatana saan ayay iigu soo baxday. Aad ayaan u soo garaacay. Waan ka daminayaa hadda. Say ku soo baxdayna waxaan rabaa inaan isla fiirino. Ukunta iyo sokorta marka hore si fiican hadaad iskugu garaacin. Bahashan aan karinayo kuma soo baxayso si wanaagsan. Marka waa kaas aad ayay iskugu dhalaaleen waa ujeedaan. Wax sokor kaga muuqato cad ayay noqotay. Haddana qaybihii kale aan u gudbaynaa isa iskugu dardarsan lahayn. Baaquligaan aan ku soo shubay ukuntii iyo sokortii garaacnayd. Haddana waxaan ku darayaa orange zest-kii. Waxa waa orange qoloftiisii ayaan ku darayaa. Marka hore qoloftaas oo orange-ka ayaan ku walaaqayaa. Ma rabi burka iyo inay isla dhex galaan. Step by step. Inta waxaa iigu jira baking powder. Baking powder-ka waxaan ku darayaa 1 qaado iyo bar baking powder ah. Qaadada yar waa idin sheego ilmaha cuntada aan ku siisano waaye. Waxaan ku darayaa koota yar oo cusbo ah. Cusbada kama badna. Waa qaadada yar barkeed oo la sii kala baray. Haddana waxaan u gudbayaa oo aan ku darayaa 1 koob iyo bar bur ah. Hal mar kuma wada daray. Saa ujeedaan barkii ayaan marka hore ku daray. Barkii ayaan ku shubayaa. Barka waxaan sameynayaa ayar ayaan sokortii, ukuntii iyo burkii isku dhex gelinayaa. After that waa diyaar. Haddana waxaan rabaa inaan ku shubo qaybta kale koobkii soo haray barkiis. Kuma wada shubay koobka dhan bar ayaan ku daray. Waa ujeedaan in sidii oo kale aan haddana isku soo dhex gelinayaa burka. Diyaar waa kana half-kii labaad ayaan ku shubay. Haddana waxaan ku darayaa burka qaybtii dhimanayd. Marka burka intaas hadda waxay noo noqonaysaa 1 koob iyo bar. Halkaas koob iyo bar 3 jeer ayaan ku daray. Bar kasta 1 mar ayaan ku daray. 1 mar gab adaa ku siisid burtuq iyo qasnin zaid ayay ka rabaysaa. Waa kana diyaar waaye saas ayay ku soo baxday waad ujeedaan. Haddana waxaan ku darayaa oo halkan iigu jira koob barkiis oo butter aan soo dhalaaliyay ah. Butter markaas hadaadan haynin saliid cadaydaada waad ku darsan kartaa. Wax dhiba ma lahan ama olive adaa jeceshahay. Subaga sixinta adaa haysatid. Any kind of saliid ah oo aad haysatid ku dari kartaa. Wax dhiba ma leh. Saas ayay iigu soo baxday. Haddana waxaan gudagalayaa sidii aan ugu shubi lahaa weelkii aan ku dubi lahaa. Waa diyaar dhinacaan aan dhiganayaa. Waxaan soo ag dhiganayaa weelkii aan oven-ka la gelin lahaa. Aniga waxaan isticmaalayaa labadan qaado maanta ma isticmaalaya ice cream scooper. Qofkii haysto waad isticmaali kartaa dhib male. Inaan ku tuso gabdhaha kale ayaan rabay. Markaas haduusa qofka haysan baashi la daray labadaada qaadaad darsanaysaa. Hadda 1 qaadaan soo daray waa ujeedeen midii kalena waan kula riday meesha. Qaadadii labaadaan soo daray hadda. Saa ujeedaan qaadadaas kale waxay iga saacideynaysaa inay iga reebto burkii oo weelkiisa ay ku reebto. 1 qaado adaa rabtid waad isticmaali kartaa laakiin kuma fuqayso ma ku dhacayo burkii meesha. Marka waa lagu khasban yahay labada qaado midna inaad ku dartid midna uga dajisid. Very easy one. Haddana waxaan ku shubayaa 1 xabo oo ugu dambeysay waaye. Intii kale waan ku soo shubay. Burkana waa ujeedaan zaid uma buuxin.
wax yar ayaan ku shubay ready waaye hadda ovenka ayaan gelinayaa 180 ayaan u geynayaa dabka wuxuu igu jirayaa 8 ilaa 10 daqiiqo markuu ka soo baxana waa isla arkeynaa diyaar waaye ovenkii uu ka soo baxay saa u jeedaan maasha Allah golden brown qurux badan ayay ugu soo baxay baashan magaceeda hore idinkuma soo sheegin waxaa la dhahaa Madeleine halkan waxa igu jira waxa waaye icing sugar sokorta budada ah just for decoration ayaan u isticmaalayaa waan ku quruxsanooyaa testina way u yeelaysaa maadaama ana markii hore sokor badan ku karin baashan ayadoo noocyo badan waa idin haya stay tuned I hope inaad ka heli doontaan tan iyo kuwa kale oo soo socdaba waxyaabo badan oo kalena hore waa idinku sheegay soo socotaa daawasho wacan meel kasta joogtaan ku soo dhawaada channelkeena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh